الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhda ku beegan tahay 16 bisha Febraayo 2022 waxa aan shirkan jaraa'id u qabanayaa in aan kaga hadlo xaaladda abaarta ee dalka ka jirta gaar ahaan dhibaatooyin gaar ah oo abaartu ay keentay oo ka dhacay qaybo kamid ah dawlad goboleedyada gaar ahaan Koonfur Galbeed gobolka Boqol sida aad la socotaan Soomaaliya abaar hadda sanadihii la soo dhaafay tii ugu xumayd ah ayaa hadda taagan oo saameysay xoolaha iyo ma aragtay dadka saameysay oo biyo la'aan iyo baad la'aan labadaba keentay sida aad la socotaan 2 sano ku dhawaad roob fiican kama da'in dalka gaar ahaan labadii xilli roobaad ee hadda u dambeysay sida darteed ayaa saameyn ay ku yeelatay xoolihii iyo bani aadamkiiba ayagoo beerihii aan ilaa 2 xilli roobaad aanu wax mataqaana ka soo bixin annagoo og in ayaxii dhibaatadii geystay aan ogeyno mataqaana xilli roobaadkii hore dhibaato weyn u geystay intii yara soo baxday marka taas waxay kaliftay in hadda qiyaastii riboodyadii warbixintii u dambeysay ay sheegayso in ilaa 4 milyan oo qof Soomaaliya oo dhan mataqaana ay halis ugu jiraan gaajo ay halis ugu jiraan loona baahan yahay in wax laga qabto xoolihii iyo intii jilacsanayd ay dhibaatooyin gaarayso waxa la socotaan in roobkiina uu weli waqtigii roobaadka uu weli ilaa 2 bilood ay ka harsan tahay marka waxa la qiyaasayaa dadka inay inta ka sii bataan dhibaatada inta ka sii badato ilaahan mataqaana u rajeynayna insha Allah inuu naga yasiro oo uu mataqaana khayraadkiisa iyo naxariistiisa nasiyo laakiin sida muuqaalku ay tahay hadda oo xilli hore wali ay sii tahay ayaa ma aragtay 2 biloodna ay ka dhimantay roobkii inuu ma aragtay wali culays badan uu jiro guud ahaan Soomaaliya oo dhan baa dhibaatada ka jirta gaar ahaan labada dawlad goboleed ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaa hadda dadka ugu mataqaana badan tahay inkastoo qaybo kamid ah mudugna dhibaatadaas oo kale laga soo sheegayo Koonfur Galbeed haddaan tusaale soo qaadano gobolka Boqol meelaha ugu daran oo ugu nugul abaaraha iyo colaada ay ku soo noqotay muddana mataqaana go'doonsanaa oo dhibaato amni darro ay ka jirtay ayaa ay kamid tahay waxaan tusaalaha hadda soo qaadanaynaa kamid ah qaybo kamid ah gobolka Boqol oo ma aragtay dadka ay gaajo ugu dhimanayaan oo oon iyo haraad ay sidoo kale u dhimanayaan degmada Rabdhuure qaybo kamid ah ayaa ma aragtay tuulooyin hoos yimaada waxa ku dhintay tusaale ahaan hooyo Soomaaliyeed oo xaamilo ahayd oo magaceeda la yiraahdo Luul Xasan oo ma aragtay ugu dhimatay oon iyo haraad kadib markii ma aragtay ay gaari weyday ay haleeli weyday ayadoo haddana loo sheegayo hooyada waxay ka tagtay 2 caruur ah ay ka tagtay Allahu naxariisto waxa sidoo kale hadda naloo soo sheegay in saygeedii uu xanuunsaday uu shoo qaaday asaga naftiisa uu hadda ma aragtay dhibaatadii ku dhacday darteed uu la shoogsan yahay ay dadka deegaanka ay baxnaaninayaan allaha mataqaana caafiya ayaan leenahay si la mid ah 2 caruur ah ayaa nafaqo darro iyo mataqaana gaajo u geeriyooday tuulooyinka degmadaas hoos yimaada ee gobolka Boqol caruurtaas waxa la kala yiraahdaa Faadumo Ibrahim Cabdi oo 2 sano jir ah iyo sidoo kale Sabriin Cabdi Yare Isaaq oo ayadana mataqaana ah 2 sano iyo bar jir ah caruurtaas oo tuulooyinka hoos yimaada ku dhintay waxa ugu daran hadda waxay tahay biyo la'aanta ayaa number 2 ka ah ayadoo xoolihii ay sii dhamaanayaan intaas warbixinta kadib waxaan baaq u direynaa ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah inay mataqaana ay gargaar isla gurmadaan dabcan dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedka Koonfur Galbeed dadaalo ay wadaan laakiin gaabis badan ayaa ka jira sidii la rabay mataqaana ma ahan inta badan gudiye un baa la magacaabaa laakiin natiijada dadkii la rabay dhaqso ma gaarto sidoo kale beesha caalamka iyo hay'adaha gargaarka ayaa inta badan ayagana dadaalo wada laakiin inta dadka ay ma aragtay dhibaatada haysato dhaqso loogu gurman lahaa ayaa waqti badan waxa la gelinayaa ma aragtay iska daba wareeg iyo warbixino ayaa la gelinayaa marka dadkii dhibaatadaas ayaa haysata ummadda Soomaaliyeed ayaga ayaa gacan furan ayaga ayaa mataqaana ka gacan furan inta kale ee wax bixisaba annagoo mar walba ku baaqayna in ma aragtay gargaar degdega adduunyada ay Soomaaliya la soo gaarto haddana Soomaalida Islaamka ah iyo adduunka kale Islaamka ah inay ummadda Soomaaliyeed soo gargaaraan ayaga ay gacan qabtaan ayaan rajaynaynaa insha Allah marka aan waxba laga sugin qolo kale ee annaga aan isu gargaarno waan ku filannahay waa isku mataqaana dadaali karnaa dhalinyarada Soomaaliyeed ardayda
iskuulaadka iyo jaamacadaha dhigta dadka dibadda jooga yaan mataqaanaa dad gaara wax laga sugin ha loo gurmado dadka dhibaatada mataqaanaa gaartay aadaad mahadsantihi maadaama gobolka godoon isku jira sasaatawna muddo badan godoonka isku diray hada sidoo macquulsano gargarka gargarsi korsanay dadka su'aal fail mail ka jirto arnaadi media dadka dhibaato badan haysata se walandeersi kor su'aalan ka muhiimsan hata meel taal waay dadka maamulada deegaanka roogo safayl uu si jawaab koran laakiin intuu hata arga hayna waliba waaha dadka meelanka badan ka dhamada haayeen meelo shabaabka roogo se wala ka deersi kor ya su'aalaata lama siyaabada wala ka deersi kor dadka iyo meel roogan hata haato siyaasad ma arin ma aragna dawladeed ma dad la badbaadiyahay saas dartee waa in ma aragtay si degdeg lanka gurmada oo ma aragna meel bi roogan dadka wala ka deersi kor la ka deersi bi baad la ka deersi dadka iyo meel roogan tusaale ahaan ma aragna cash transfer lan soo bi kor meel la ka deer kor approach ka lamaadno waliba waa anti deegaanada dawladda haysata dadka kooyano haani meelaha ka qaxay meel kooyan ma aragna safayl la handhawaay walka filan la si dadka haan ka dhawaataysan meelana mankan roogan marka wali ku yaaba intii ka deedan la ku yaaba saasaas la hawla ku deersi kor insha Allah